السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصبح نمو جمعة ساعد waxay ku beegan tahay abaara 9 subaxnimo ama 3 saac oo subaxnimo sida hadba adigu u taqaanid. Waxaan ku suganahay wadanka Uganda caasimadiisa Kampala. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa video aan ka diyaariyay suuqa weyn ee Awino. Haatan waxaa soo gaaray goobtii ka adeegan lahaa adeega inta rabay markii aan qortay mise aan dalabkayga gudbistay alaabteeda ayaa la ii diyaarin doonaa. Inta la ii diyaarinayana suuqa ayaan gudaha u sii gali doonaa oo waa idin soo tusi doonaa. Haatan waa soo socday waxaan imaaday meeshii ugu horeysay ayaan ka bilaabay. Sida u jeedaan waxaa idinkaga muuqdo kabsar, barbarooni, basbaas, carrot iyo waxyaabo badan oo greens ah. Kadib inta raba aniga marka ka qaatana waa ka sii socon doonaa. Bal dhinacan oo soo yara weecano oo tamaandadeeni iyo waxaanina iska qaadano kadibna waan sii socon doonaa oo socdaalkeeni ayaan sii wadan doonaa haddii Ilaahay ku idmaa insha Allah. Kadib meeshan kaleeta ayaa imaaday waxaan ka qaadanayaa alaab inta aniga rabo mise inta aniga aan u baahanahay. Kadibna waan soo bixi doonaa oo meeshan kaleeta ayaan imaaday spices ka lagu darsado shaaha sidoo kale briska everything ayaa meeshan yaala sida u jeedaan. Inta rabo markaa ka soo qaatay kadibna waan soo dhaqaaqay oo meeshii baradhada ayaan imaaday. Baradhadeedii markaa qaatay sidoo kale dhinacan ayaan hadda u soo gudbay oo lagu iibinayo cananaaska, babaayga iyo qaraha oo aad iyo aad u jaban run ahaantii qiimo aad iyo aad u hooseeya ah. Haatan cananaaska ayaa la ii fiiqayaa saa u jeedaan ama qolofta la iga qaadaya. Joyce adiga iska leh hadaa rabtid inaad sidiisa ku qaadatidna waa qaadan kartaa. Hadaa howl fududeyn ka rabtana hadii waaba sidan. Marka soo dhawaada haatan socdaalkeena ayaan sii wadan doonaa. Waxaa idinkaga cudur daaranayaa inaan suuqa dhan idin tusi karin sababo jirta awgeed. Meel qaar baa idin soo duuduubi doona aan adeeg iyo alaabo ka qaadanayo haduu Ilaahay ku idmaayo marka ila socda. Saaxiibayaal hadda waxaan ka soo dhamaaday dhanka iyo khudradda. Hadda waxaan u gudbi doonaa sidoo kaleeto kalluunka ama malayga sad u taqaanid hadba. Intaan sii socno wadadana waxaa indhihiina qaban doonaan waxyaabo badan agab kala duwan oo wadada lagu iibinayo sida u jeedaan. Ila socda ha iga daalina fadlan waxaan ka codsan lahaa hadaad igu cusub tahay subscribe ina ii saarto videoga like gareyso share gareyso ra'yi hadaa qabtidna comment igu soo qorto waa mahadsantihiin. Hadda waxaa soo gaaray meesha malayga lagu gado. Sida ognahay wadankan malahan bad wuxuu leeyahay wabi. Malaygan aad u jeedaanna waa kii wabiga marka wuuna fitamiin badan yahay run ahaantii waan iska qaataa anigu. Haddana waxaan u soo baxay dhanka iyo dukaankii adeega ii yaalay. Sida u jeedaan ninkan madaxa igu sida alaabta waa alaabteydii oo wadankan sida ayaaba dhaqanka ah oo qof ayaaba ku soo qaadayo xoogaagii aad markaas kula heshiisa siin doontaa kadibna dukaankii alaabta ku tiilo ku soo dhigaya. Kadib hadda meeshii markaa imaaday alaabta ii taalay dukaankayga bajaaj ayaa soo qabsaday alaabtina waa ku soo gurtay. Kadibna dhabadan soo qaaday oo wax kale ma sugay maadaama adeegan soo dhameystay. Idinkana waa idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina quruxda badan leh aad igeliseen iyo dhiirigelintiina waad ku mahadsantihiin. Waxaan jeclaan lahaa inaad dhulka iga qaadaan oo sare i geysaan oo subscribe-ka ii saartaan oo like-ta iyo aad walaashiin baahay igu garab istaagtaan. Waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalo badan inaa Uganda idinkaga soo diyaarin doono haddii noqon lahayd waxyaabaha iga soo codsataan haddii noqon lahayd waxyaabo aniga maskaxdayda ka keensado. Marka hadii tuugsina ma wadi karnay walaalayaal oo qof weyn baahay waa idin salaamayaa. Guud ahaanba waxaan halkaas ku soo gabagabeeyay mise ku soo afmeeray videogi markaas aan kaga hadlayay suuqa ugu weyn Kampala ee Awino. Videogan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you guys.